waxay yidhaahdeen marka waxaan kaa doonaynaa saalixow haddii aad rasuul ilaahay tahay waan ku raacaynaaye dhagaxaas weyne halkaa ku yaala jabalkaas ama buurtaas waxaad ka soo saartaa hal iyo qurbac yaroo ay wadato fastajaaba allahu dacwatahu ilaahay dacwadiisii buu aqbalay waxaa ilaahay u soo saaray oo dhagixii uga soo saaray biqudratihi subxaanahu wa tacaala hashii ayaga ay tilmaanteen sifadii ay tilmaanteen leh hashu marka waa hal mucjizo ah waxaa sifaadkeeda ka mid ah biyaha ay ka cabayaan hal maalin hasha ayaa cabaysa loogu tegi maayo maalinta kale ayagu markaa leeyihiin oo ayagu cabayaan oo hashu waa hal aad u caano badano yacni qabiilkaa reer samuud oo idil iyo hashu caano ku deeqaysa marka hashii sifadeedii saasay noqotay hashii baa marka mucjizo iyo cajiib ku noqotay qudaar binu salif midka la yidhaahdo oo sagaalkaa ka mid ahaa oo ilaahay fii suurati washamsi uu noogu sheegay idin bacasa ashqaaha waa ashqaa qowmi samuud qudaar binu salif ninkaa la yidhaahdo ayaa markaa hashii dilay hashii bay dileen oy boqon gooyeen markay hashii dileen qurbicii wuu cararay baa la yidhi buurtii ayuu fuulay dhagax ayuuna galay dhagixii buu galay oo way waayeen bidhaantiisii way waayeen inay dilaan bay rabeen isagane laakiin qurbicii dhagixii ayuu galay oo ma aysan arag dibdama oo ma arag iyo qoomkoodii reer samuud oo dhan ba intii iimaanka diiday oo shirkiga iyo dulmiga laga kari waayey waan halaagnay baa ilaahay yidhi annaa damarnaahum wa qawmahum ajmaciin ayagii iyo qoomkoodiiba waan halaagnay darsigeena maanta waa nabiyullaahi saalix calayhi wa calaa nabiyina afdal salaatu wasalaam nabi saalix wuxuu ka mid ahaa oo qabiilkiisu ahaa qawmu samuud nasabkiisu wuxuu galaa baa la yidhahdaa sam binu nuux oo wuxuu ka mid ahaa ambiyadii yani awlaaddii nabi nuux yani faraceedii ayuu ka mid ahaa nabiyullaahi saalix qur'aanka ilaa 9 jeer baa lagu sheegay suurado badan baa ilaahay kaga qisooday nabiyullaahi saalix iyo qoomkiisii oo reer samuuda yacni waxyaalihii dhex maray iyo mucjizadii la siiyey iyo qawmu samuud sida ay kula mucaamaloodeen ay kula dhaqmeen nabigi ilaahay usoo diray yaa ilaahay in badan qur-aanka nooga qisooday suuradaha ka hadlay qisatu saalix wa qawmuhu waxaa ka mid a suuratu alacraaf suuratu huud baa ka warrantay suuratu shucaraa suuratu namal suuratu alxijri suuratu qamar suuratu washamsi fusilat zaariyaat xaaqa yani suuradahaasoo dhan waxay ka warramayaan qisatu samuud iyo wa nabiyullaahi saalix nabi saalix qabiilka loo diray ee uu ka dhashay reer samuud la oran jiray waxay degi jireen oo degaankoodu ahaa meel haddaba macruuf ahoo la yidhaha madaa'inu saalix baa loo yaqaanaa xijaaz iyo urdun bay udhaxaysaa xijaaz waa dalkan sacuudiga iyo urdun yacni dalka la yidhaahdo ayay udhaxaysaa aasaartoodii iyo meelihii ay degi jireen weli waxbaa kasii baaqi ah oo aasaartoodii baa baaqi ahaa la yidhaha madaa'inu saalix ayaa loo yaqaanaa reer samuud waxay ahaayeen qoladii ku xigtay ama qabiilkii ku xigay reer caad markii ilaahay halaagay intii nabiyullaahi huud raacday iimaanka qaadatay mooyaane wixii kaloo dhan markii la halaagay
waxaa ka dambeeyey qawmu thamuud ilaahay baa u nicmeeyey yacni qabiil aad u fara badan bay ahaayeen ilaahay baa dhulka makaniyey ilaahay baa u nicmeeyey oo dhulka madaa'inkaas la yidhaahdo oo u dhexeeyo yacni urdun iyo xijaaz u dhexaysa dhulkaasay degi jireen dhulka ayay camireen beero waaweyn iyo guryo aad u dheer dheer ayay lahaayeen buuraha ayay guryo ka samaysan jireen ilaahay baa makaniyey dhulka subxaanahu watacaala waxay sameeyeen marka la yimaadeen fasaad iyo inay ilaahay kayrkii caabudaan ayay la yimaadeen nebiyullaahi saalix baa ilaahay u soo diray subxaanahu watacaala isagoo rasuul ah loo diray ayaga uguna yeerayo ilaahay cibaadadiisa iyo tawxiidka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka noogu sheegayaa isagoo nooga warramayo dacwadii nabiyullaahi saalix wa ilaa thamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruh qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum hadihi naaqat llahi lakum aayatan fadaruuha ta'kul fi ardi illah walaa tamasuuha bisuu'in fayaakudakum cadaabun aliim nabi saalix reer thamuud ayuu la hadlay wuxuu yidhi qoomkaygiiow ilaahay caabuda ilaah kale ma lihidin ama axad kale oo ilaahay aan ahayn oo cibaado mutaystay ma jiro tawxiidka qaata waxyaalihii uu kula hadlayay waxaa ka mid a ilaahay nooga qisooday wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caad wabawa'akum fi lard tattakhiduuna min suhuuliha qusuuran watanxituuna aljibaala buyuuta fadkuruu aalaa allah walaa tacsaw fi lardi mufsidiin qoomkaygiiyo xusuusta markii ilaahay uu idinka dhigay khulafo iyo dadkii ka dambeeyey ree caad ee ilaahay dhulka makaniyey ayaa ilaahay idinka dhigay barakaadkii dhulkaa la idiin furay nicmaa ilaahay idin siiyey wabawa'akum fi lard dhulkaa ilaahay idin makaniyey tattakhiduuna min suhuuliha qusuura watanxituuna aljibaala buyuuta yacni meel kastaba yacni guryo ayaad ka dhisateen iyo salo aad u dhaardheer iyo guryo dheer dheer oo dhulka siman ee gogolka ayay guryo ka dhisanayaan buurahana way qodayaan oo way qorayaan markaasay guryo ka samaynayaan fadkuruu aalaa allah walaa tacsaw fi lardi mufsidiin ilaahay nicmooyinkiisa xusuusta dhulka ha fasahaadinina oo dulmiga iyo shirkiga iyo ifsaada dhulka ka daaya yacni saasay ahay dacwadii nabiyullaahi saalix ree thamuud ma aysan aqbalin dacwadii ma aysan aqbalin rasuulka way ka hor imaadeen nicmadii ilaahay ugu nicmeeyeyna kuma aysan shukrinina way kufriyeen wayna diideen inay rasuulka raacaan fasaadkii iyo dulmigii ay wadeen bay kusii madax adkaadeen ilaahay baa noo sheegay qisadoodii kadabat thamuudu lmursaliin id qaala lahum akuuhum saalixun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin reer thamuud waxay beeniyeen rusushii loo soo diray oo yacni qoomka rasuulkii loo soo diray hadday beeniyaan waxay la mid tahay ayagoo rusushii ilaahay soo diray oo dhan beeniyey haddii ay rusushii rasuul ka mida waa rasuulkii loo soo diray ayaga marka ay rumeeyaanna rusushoo dhan bay wada rumeeyeen leanna rususha dacwadoodu hal bay ahayd tawxiidka ay dadka ugu yeerayeen marka reer thamuud waxaa ilaahay ku sheegay inay rusushii ilaahay soo diray oo dhan ay beeniyeen kadabat thamuudu lmursaliin reer thamuud rusushii loo soo diray bay beeniyeen baa ilaahay leeyahy yacni rasuulkii saalixaa ee loo soo diray bay beeniyeen marka rusushii oo dhanba way beeniyeen id qaala lahum akuuhum saalixun alaa tattaquun nabi saalix wuxuu ku yidhi war ilaahay ka baqa innii lakum rasuulun amiin rasuul ilaahay soo diray oo adinka loo soo diray baan ahay ilaahay ka baqa saasuu ku yidhi fattaqullaha waadiicuun ilaahay ka baqa oo adeeca reer thamuud ma aysan rumaynin rasuulkii ma aysan rumaynin dacwadii ilaahayna way diideen
nabi saalix wuxuu u caddeeyey wixii ilaahay uu ku amray subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay abuuray oo khaaliqoodii yahay, inuu ilaahay u nicmeeyey dhulka kan inay camiraan, inuu ilaahay makaniyo ilaahay u fududeeyey oo wax walbaba loo furay, yacni beero ay abuurtaan iyo guryo dheerdheer oo ay degaan iyo wax kastoo imkaaniyaad oo dhulka yacni manaaficdiisii oo dhan baa ilaahay makaniyey. ree caad markii la halaagay qoomkii bedelay bay noqdeen ree thamuud oo ilaahay dhulkan ugu nicmeeyey bay noqdeen. waxaa ka mid ahaa hadallihiisii uu kula hadlayey huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha fastakfiruuh uma tuubuu ilayh ina rabbii qariibun mujiib. ilaahay waa kii idin abuuray, idin khalqay, dhulka ayuu idin makaniyey. ilaahay dembi dhaaf weydiista, ilaahay u toobad keena. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ducada aqbalo, addoonkiisana maqlayo u dhow marka uu yacni baryo. yacni sidaasuu ku lahaa nabiyullaahi saalix qoomkiisii. jahligoodii iyo cinaadkii iyo madax adaygii ayay kusii adkaadeen, wayna diideen inay rasuulka warkiisa dhegaystaan oo waxay ku yidhaahdeen oy jawaabtoodii noqotay qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una wa inana lafii shakin mima tadcuuna ilayhi muriib. waxay yidhaahdeen saalixow waxaad ahayd nin agtaanada ku weyn oo qiimada dhexdaanada ahayd, inta aadan waxaan hadda aad noogu yeeraysa aadan samaynin, ma waxaad noo diidaysaa waxaan aabbayaalka anagii ka soo gaarnay oo caabudi jireen waxa aad noogu yeerayso oo in ilaah keliya la caabudo ah? shaki baa nooga jiro, ma aaminsanin mana rumaysnin, niyahow kugu raaci mayna waxa aad sheegayso. sidaasay markaa jawaabtoodii noqotay. way diideen inay xaqi raacaan, kibir iyo isla weynin iyo gaalnimo iyo kufri ayay la yimaadeen. way diideen inay rasuulkii raacaan calayhi salaatu wasalaam. hadallahoodii iyo cinaadkoodii iyo madax adaygoodii bay sii wateen oo hadallahoodii waxaa ka mid ahaa ay ku lahaayeen rasuulka ugu jawaabayeen qaaluu inamaa anta min almusaxariin. waxaabaad ka mid tahay niyahow dadka la sixray baad ka mid tahay, waad sixran tahay. hadalka aad ku hadlayso hadal qof yacni caqlila uu ku hadla maaha, waad sixran tahay, rasuul ma tihid, wax hadda aad noola imaatay oo aniga aan raacaynana ma jiro. saasay leeyihiin. dhexdoodii baa isla hadlayo. markaasi waxay leeyihiin abasharan mina waaxidan natabicu inaa idan la fii dalaalin wa sucur. ma qof bini aadan ahoo annaga naga mid ah miyaa ilaahay rasuul ka dhigay? makaasaan raacaynaa oo wuxuu noo sheegaya aan rumaynaynaa. haddii aanba raacno bashar bini aadan ahoo annaga naga mid ah haddaan raacno baadi baama noqonayna. a ulqiya dikru calayhi min baynina bal huwa kadaabun ashir. asagoo na dhex jooga miyaa waxyi lagu soo dejiyey oo rasuul laga dhigay? maya, been buu sheegayaa. waxaan rumaynayna ma aha. marka nabi saalixna markaa hadalkiisii muxuu ahaa? sayaclamuuna gadan man ilkadaabu alashir. yaa ilaahay nooga qisooday subxaanahu watacaala qofka yacni beenaalaha ah ee kadaabka ahee sharta badan waa la ogaan doonaa. midka uu noqdo inuu ayaga yahay iyo inuu rasuulka ilaahay soo diray yahay way kala caddaan doontaa arrintu. gaalnimadoodii bay ku madax adeygeen, way diideen inay rasuulkii raacaan calayhi salaatu wasalaam. qayb yar oo dadkii yacni ka mida shacabka ahaa ka mida ayaa iimaankii qaatay. kuwii madaxdooda ahaa waxay yidhaahdeen marka hadduu saalixna sii dhex joogo oo sidaa noo sii dhex joogo dadka waxun u sheego, yacni dad badan buu naga duufsanayaa. arrintiisa aan ka hor tagno, wax uuna yacni samayn karin aan u dirno si markaa dadku ay oga cajizaan oo waxa uu sheeganaya inuuna waxba ka jirin ay dadku u rumeeyaan. aan xujaynay yidhaahdeen. markaa aan xujayno oo marka hore yacni yahay aan xujo aan ku xidhno, waxuusa keeni karin aan u dirno. marka waxay su-aasheen yacni mucjizaad na tus bay yidhaahdeen.
mucjizadana waa yani ayagaa isu sheegay oo waxay madaxdoodii ku tashadeen yani wax mucjizo ahoo arrin adag ah oo qofnaba keeni karin aan u dirno si arrintiisu marka ay u beenowdo markuu keeni waayo oo loo ogaado. waxay yidhahdeen marka waxaan kaa doonaynaa saalixow haddii aad rasuul ilaahay tahay waan ku raacaynaaye dhagaxaas weyne halkaa ku yaala jabalkaas ama buurtaas waxaad ka soo saartaa hal iyo qurbac yaroo ay wadato hal yani tilmaanteeda ayagu ay tilmaanteen waa hal weyn oo intaa la eg oo sidaa iyo sidaa u eg oo marka nabiyullaahi saalix ilaahay buu baryey subxaanahu watacaala ilaahay baa ajiibay subxaanahu watacaala fastajaaba allahu dacwatahu ilaahay dacwadiisii buu aqbalay. waxaa ilaahay usoo saaray oo dhagixii uga soo saaray biqudratihi subxaanahu watacaala hashii ayaga ay tilmaanteen sifadii ay tilmaanteen leh oo yani qurbac wadato ayaa dhagixii ka soo baxay. nabiyullaahi saalix marka wuxuu ku yidhi soo miina weydiisanin hal tilmaantaa iyo tilmaantaa leh dhagixii baa lainkaga soo saaray wataa hashaa iska ilaaliya haadihi naaqatullaahi lakum tan waa hashii ilaahay yani waxa loogu idaafaynayo idaafada waa yani idaafatu tashriifin wa tacdiim baa la yidhaha oo waa yani waa hal mucjize ah oo ilaahay xaggiisa la idinkaga keenay sidii aad weydiisateen oo aad dalbateen hashaa marka iska ilaaliya qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum hadihi naaqatullahi lakum aaya fadaruuha ta'kul fi ardi illah walaa tamasuuha bisuu'in fayaakudakum cadaabun aliim. waa hashii ilaahay waa aayad mucjize ahoo cad hashaa iska ilaaliya ha taabaninoo wax dhibaataa ha u geysanina oo markaa cadaab adag idinku soo dego cadaab adag baa idinku soo degayo haddii aad hashaa taabataan. hashu marka waa hal mucjize ah. waxaa sifaadkeeda ka mid ah biyaha ay ka cabayaan hal maalin hasha ayaa cabaysa loogu tegi maayo maalinta kale ayagu markaa leeyihiin oo ayagu cabayaan maalinna hashaa cabayso maalinna ayaga cabayo marka maalin bay yani biyihii cabayaan oy dawdii joogayaan oy ceelkii ka cabayaan maalinta berri oo kalena wixii cabi lahaayeen way usaxay qaadanayaan oo biyahoodii meel bay ku shubanayaan. maalintaa dambe marka hasha keligeed unbaa cabayso cid kale oo biyaha la wadaagi karto ama la cabi kartaa ma jirto keligeed unbaa biyihii cabi. ayaguna waxay ku deeqaysaa dhammaantood waxay ahaayeen oo dhan caanay ku deeqaysaa oo hasha waa hal aad u caano badanoo yani qabiilkaa reer samuud oo idil iyo hashu caano ku deeqaysaa. marka hashii sifadeedii saasay noqotay. hashii baa marka mucjize iyo cajiib ku noqotay in badan oo kamida oo awal dadkii diidanaayo oo nabi saalix ka hor imaadsanaa kamida ayaa markay mucjizadii arkeen ayay ilaahay rumeeyeen oo ay qaateen rasuulka raaceen. tii baa marka haddana dhibaato kusii noqotay kuwoodii madaxda ahaa wixii ay qabsadeenna waa lagu xujeeyey oo mucjizadii waa la siiyey nabigii ilaahay wixii wax alla waxay sameeyaan bay marka garana yihiin way fikireen muddo kadib haddana kuwoodii madaxda ahaabaa waxay leeyihiin mu'miniintii la hadlayaan qaala almala'u aladiina istakbaruu min qawmih liladiina istudcifuu liman aamana minhum ataclamuuna ana saalixan mursalu min rabbih. kuwii madaxdaabaa waxay leeyihiin mu'miniintii waxay u leeyihiin mustadcafiinta ahaa oo dadka dee inta iimaanka qaadatay in yar bay ahaayeen way liidahayaan oo qolyahan kale waa kuwii xoolaha iyo madaxda iyo maamulka yani qabiilka oo dhan ba lahaa weye. ma waxaad aaminsan tihiin waxa uu yani saalix inay ilaahay xaggiisa laga soo diray oo rasuul ilaahay yahay ma saasaad aaminsan tihiin? qaaluu innaa bima ursila bihi mu'minuun. haabay yidhaahdeen waxaan aaminsannahay in ilaahay xaggiisa laga soo diray oo rasuul ilaahay uu yahay saasaan aaminsannahay waana rumaysannahay waana raacnay
waxay yidhaahdeen markaa kuwii madaxda ahaa annagu waxa aad sheegaysaan waan diidnay waan ku kufrinay nabi saalixna ma rumaysnay inuu nabi yahay qaala aladiina istakbaruu inna biladii aamantum bihi kaafiruun waxa aad rumayseen oo saalix rasuulnimadiisa ah annagu waan diidnay yidhaahdeen ma aaminsanin mana rumaysnin bay yidhaahdeen marka mu'aamaraad bay sameeyeen waxay markaa ku tashadeen inay hasha dilaan hashan waa in la dilaa bay yidhaahdeen si ay meesha oga baxdo arrinteeduba oga baxdo waa inaan yacni hashaan dilnaa ayay yidhaahdeen sidee baa marka hashi lagu dilayaa hashii sidii lagu dili lahaa baa marka culays noqotay qofkii dili lahaa iyo sidii lagu dili lahaa baa marka si adag noqotay markii arrintaas yacni mu'aamaradeedii muddo ay wadeen waxaa marka soo baxay laba dumar ah laba hablood ama laba islaamood oo reer samuud ka mid ah oo laba islaamood oo xunxun ah mid magaceeda waxaa la oran jiray saduuq baa la oran jiray ibnatulmuxaya waxay ahayd islaam aada u qurux badan hanti badan iyo maal badanna leh nin kuwii sharta badnaa ka mid ah misrac la oran jiray ibnulmuharaj la oran jiray ayay nafteeda u bandhigta oo waxay tidhi haddii aada hashaas disho waad i guursanaysaa maalkayga iyo anigaba dee yacni adigaa iska leh haddii aada hashaa disho ood gowracdo midda labaad islaamta labaad cunaysa la oran jiray bintu qunaym islaam weyn bay ahayd iyadu 4 gabdhood bay lahayd oo qurqurux badan reer samuud kii ugu shaqisanaa ee ugu khayr darnaa waa midka hasha dili doonay qudaar binu saalif baa la oran jiray kaasay la hadasho waxay ku tiri haddaad hasha disho 4tayda gabdhood mid alla midaan rabtaan ku siinaya midaad ka doorato ayaan ku siinaya labadoodii baa marka arrintii iyo go-aankii ballankii inay fuliyaan ayay go-aansadeen oy ballan qaadeen kuwii ashraarta ahaa ee sharta badnaa bay yacni kasoo dunteen dad kasoo dunteen ilaa 9 qof bay noqdeen marka 9 qof ayay noqdeen 7 kaley heleen 9 bay noqdeen 9 bay noqdeen 9ka iyaga ah waa kuwa ilaahay uu noogu sheegay في سورة النمل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون waxaa ku sugnaa magaalada 9 yacni mufsidiin ah oo aan waxba hagaajinaynin marka waa 9kaas qof oo reer samuud ka mid ah waxay markaa ku tashadeen hasha inay dilaan nabi saalixna ay dilaan labadaa go-aan bay qaateen hashi ayay markaa dileen qudaar binu saalif midka la yidhaahdo oo 9ka ka mid ahaa oo ilaahay fi suurati washamsi uu noogu sheegay idin bacatha ashqaaha wa ashqa qawmi samuud qudaar binu saalif ninka la yidhaahdo ayaa markaa hashi dilay hashi bay dileen oy boqon gooyeen markay hashi dileen qurbicii wuu cararay baa la yidhi buurtii ayuu fuulay dhagax ayuuna galay dhagixii buu galay oo way waayeen bidhaantiisii way waayeen inay dilaan bay rabeen isagane laakiin qurbicii dhagixii ayuu galay oo ma aysan arag dibdama oo ma arag yani mufasiriintu waxay yidhahdaan iyadoo yani laga soo warinayo axaadiis kusoo arooray in daabadda yani hadhow saacadda qiyaama calaamaadkeeda kamid oo soo bixi doonto inuuba ahaa yani hasha fasiilkeedii ama qurbici inuu noqon doono markay hashii dileen nabiyullahi saalix ilaahay buu beriyey subxaanahu watacaala ilaahayna wuxuu u sheegay in la halaagi doono reer samuud oo halaag uu kusoo degi doono u sheeg baa la yidhi cadaab baa u imaan doone marka wuxuu ku yidhi nabiyullahi saalix amarkii ilaahay baa diideen hashii ilaahay ee mucjizada ahayd ee la idiin soo dirayna waa disheen
gaalnimo iyo fasaadkii baad yacni ku madax adeegteen oo laydinka kari waayey naseexadii iyo wixii aan idinkugu yeerayo khayrka ahaana waa diideen cadaab ayaa idin imaan doono oo idinku soo degi doono muddo intaan loo qabanin waxay markaas yidhaahdeen saalixna waa inaan dilnaa asagana oo asagana aan arrintiisa ka takhallusno oo aan dhamayno saas ay yidhaahdeen qolada ayagoo hashi dishay ayaa marka fasaadoodii iyo xumaantoodii ayaa markaa yacni kusii madax adeygay oo waxay yidhaahdeen nabi saalixna waa inaan dilnaa asna qaaluu taqaasamuu billahi lanubayitanahu wa ahlahu uma lanaqulana liwaliyihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inaa lasaadiquun waxay isku dhaarsadeen nabi saalix iyo ehelkiisii inay habeen intay kusoo dheermadaan ay miraan oy eber ka dhigaan markaana ay yidhaahdaan anagu war uma hayno mana ogin wixii halaagay oo wax u geystoo laayey ma garanayna saasay yidhahdeen ku dhaartaan arrintaana run baan ku sheegaynaa waxba kama ogin aan sidaa ku dilna yidhaahdeen hadhowna aan sidaan idhaahno wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun makri bay maleegeen inay dilaan nabigii ilaahay oo ay dhibaato u geystaan bay ku go'aansadeen makrigaas oo hadhowna ay inkiraan annagana wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala makrigoodii baan ku abaalmarinay wamakarnaa makran makrigoodii baan ku abaalmarinay abaalmarintiisii iyo jazihiisii baan u diyaarinay wahum laa yashcuruuna iyagoon waxba ogeyn fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim annaa damarnaahum wa qawmahum ajmaciin ayagii waa kuwii tashanaya sagaalka ahaa iyo qoomkoodii reer samuud oo dhan ba intii iimaanka diiday oo shirkiga iyo dulmiga laga kari waayey waan halaagnay baa ilaahay yidhi annaa damarnaahum wa qawmahum ajmaciin ayagii iyo qoomkoodiiba waan halaagnay fatilka buyuutuhum khaawiyatan bima dalamuu ina fi dalika laaayatan liqawmin yaclamuun guryahoodii iyo degaankii ay degi jireen wataa khaaliga ah dulmigii ay sameeyeen sababteeda taa cibraa ugu sugan dadka wax garanayo dadka ilaahay amarkiisa qaadan waayo oo rususha loo soo diray beeniyo oo xaqa raaci waayo sidaa unbay aakhirkoodii iyo ciribtoodu noqoni guryahoodii wakaa khaali ah degaankii ay degi jireen oo camirnaa wakaa eberka ah wax jooga aan lahayn fatilka buyuutuhum khaawiya bimaa dalamuu baa ilaahay dulmigoodii sababtiisii ayuu dhulkoodii oo dhan eber u yahay waa dhammaadeen wax ka nool ma jiro naf iyo maalba waa eber bay noqdeen dadka wax garanayo ee wax fahmahayana aayad iyo mucjizay u tahay weeye waanjayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dadka mu'miniinta ahaan badbaadinay kuwii nabiyullaahi saalix raacay rasuulka ilaahay iyo intii mu'miniintaydoo raacday baan badbaadinay wa kaanuu yattaquun iimaanka lahaa ee naga baqi jiray ee cibaadada ku dadaali jiray shirkiga iyo xumaanta iska ilaaliyey kuwa waan badbaadinay baa ilahay yidhi subxaanahu watacaala nabiyullaahi saalix qoomkiisii uu la hadlay wuxuu yidhi saddex beri unbaad nooshihiin saddexdaa maalmood iska raaxaysta iska noolaada cadaab baa idinku soo degi doone soo hashi miina gowracin faqaala tamatacuu fi daarikum halaathata ayaamin dalika wacdun gayru makduubin saddex beri iska noolaada wax iska cuna saddexdaa maalmood unbaad muddo haysataan waa wacdi iyo ballan ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo sugnaaday oo gayru makduubin marnaba aan la beeninaynin oo la baajin doonin weeye saddexdaa beri baad haysataan saasuu marka qoomkiisii u sheegay saddexdii maalmood waxaa la yidhi maalinta koobaad yani saddexda maalmood axad baa la halaagay iyagoy dhammaadeene yacni khamiis ayuu ahaa yoomka koobaad yoomkii koobaad bay dhammaysteen maalintii markuu waagu u baryay wejiyaalkoodii baa isbedelay sufra ayuu noqday wejigoodii wuu isbedelayoo sufra ayuu noqday yalow buu noqday falamaa amsuu markay qoraxdii u dhacday maalinta ay dhammaysteen
naaduu way isu dhawaaqeen alaa qad madaa yawmun min alajal saddexdii beri maalin baa ka tagtay uma asbaxuu fi lyawmi thani maalintii labaad baa waagii u baryey wahuwa yawmu ljumca weye wawujuuhuhum muxmira wejiyaalkoodii wuu guduuteen kulli waa wada guduudan yahay wejigoodii falamaa amsuu markay gabalkii qoraxdii u dhacday naaduu way isu dhawaaqeen alaa qad madaa yawmaani min alajal muddadii 2 maalin baa dhammaatay uma asbaxuu fi lyawmi thalith maalintii saddexaad ayay waa beriisteen wahuwa yawmu sabti weeye wawujuuhuhum muswadda wejiyaalkoodii waa madoobaan kulli wejigoodii waa madow yahay falamaa amsuu maalintii markay qoraxdii u dhacday way dhawaaqeen way isu yeereen alaa qad mada alajalu ajalkii wuu dhammaaday 3 maalmood waa dhammaatay habeenkii bay baryeen falamaa kaana sabixatu yawmi alaxad maalinta axaddaa subaxeedii markii la gaaray ta'ahabuu way diyaar garoobeen waqacaduu yantadiruuna maada sayaxilu bihim min alcadaab 3 beri eena loo ballan qaaday waa dhammaatay maxaa maanta noo imaan doono halkii bay godad bay qodeen godadkii bay galgaleen waa la sugayaa xaggee laga imaan doonaa xaggee looga imaan doonaa ma oga dhinac looga imaan doono waxa uu imaan doono oo ku dhici doono isma ogo qoraxdii baa soo baxday qoraxdii markay sidaa usoo baxday iyo waxay u maleeyeen inba loo kaadiyey oo dib looga dhigay waxay yidhahdeen war qoraxdii baa soo baxday weli wax ma aragne marka ayaa jibriil baa soo baxay qoraxdii meeshay ka soo baxaysay dhinaceedii ayay ka arkeen muuqaal ka soo muuqdo qoraxdii qariyey markaasay godadkii madaxa ay kasoo bixiyeen bay kasoo babaxeen bay ku carareen jibriil baa markaa ku qayliyey fa akhadathum arrajfatu fa asbaxuu fi daarihim jaasimiin baa ilaahay waxaa qabatay sayxo yani sayxa lagu halaagay qawmu saalix jibriil baa ku qayliyey qayladii uu ku qayliyey hal mar keliya uu dhawaaqay yaa nin la arkaba wadnihii baa istaagay wadnihii baa ku dhex dhacay wadnihii waxaad moodaa intii lasoo qabtay in lasoo gooyey qayladii keliya markaasay mayd halkiiba ku wada dhaceen dhulkiina waa lala gooyey waxaa la isugu daray markaa lulid dhulkii lagu lulay iyo qaylaa la isugu daray markaasay nafti ka wada baxday fa asbaxuu fi diyaarihim jaasimiin ba ilaah yidhi maydkoodii iyo jisadoodii baa sidaa u daadsan oo wax ruux ahoo ku jirta aan jirin way dhammaadeen annaa damarnaahum wa qawmahum ajmaciin ba ilaah yidhi undur kayfa kaana caaqibatu makrihim bal dulmigoodii iyo makrigoodii ay nabi saalix u maleegayeen iyo mu'miniinta iyo dhibaatadii iyo fasaadkii ay samaynayeen ciribtoodii waxay noqotay bal fiiri baa ilaah yidhi annaa damarnaahum wa qawmahum ajmaciin ayaga iyo qoomkoodiiba waan halaagnay kuwii madaxda ahaa iyo kuwii ashraarta ahaa ee dulmiga iyo dhibaatada iyo ka shaqaynaya makriga iyo fasaadka iyo qoomkoodii oo dhanba waan halaagnay fatilka buyuutuhum khaawiyatan bima dalamuu ina fi dalika la aayatan liqawmin yaclamuun guryahoodii iyo degaankoodii waa eber wax ka nool ma jiro waa la baabi'iyey eber baa ilaahay ka dhigay inaa arsalnaa calayhim sayxatan waaxida fakanuu kahashiimi lmuxtadir qayla ayaan ku dirirnay baa ilaahay leeyahy jibriil baa hal mar ku qayliyey markaasay hal mar keliya waxay noqdeen bal la shafay oo kale dhulkay sidaa u taadeen ruuxdii baa ka wada baxday markaasay wada dhammaadeen kulligood xabadna kama noola ilaahay waa halaagay reer samud waa la halaagay waxa ilaahay badbaadiyey subxaanahu watacaala nabiyullaahi saalix iyo mu'miniintii raacday baa ilaahay badbaadiyey markii ayagii la dhameeyey oo waxay nicmo haysan jireen iyo waxay wanaag lahaayeen iyo guryaha waaweyn oo ay lahaayeen wixii oo dhan waxba ooma tarin famaa aghnaa canhum maa kaanuu yaksibuun waxay kasbayeen iyo waxay haysan jireen midna wax ooma tarin waa la halaagay way baaba'een kaan lam yagnaw fiiha alaa ina samuuda kafaruu rabbahum alaa bucdan lisamuud baa ilahay waaba ayagoon weligood ahaanin ayagoon jirin bay la mid noqdeen reer samuud way kufriyeen rabbigood bay ku kufriyeen qawmu samuud alaa bucdan lisamuud baa ilahay reer samuud
halaag baa usugnaatay bucdi baa usugnaaday waa la halaagay waxaa ilaahay badbaadiyey subxaanahu watacaala nabiyullaahi saalix iyo mu'miniintii baa ilaahay badbaadiyey waanjayna aladiina aamanuu wakanuu yattaquun baa ilahay yidhi waxaan badbaadinay baa ilahay yidhi kuwii iimaanka iyo taqwada lahaa ee nabiga raacay ee amarkeenna qaatay kuwaa waan badbaadinay wax dhibaato oo taabatayna ma jiro nabiyullaahi saalix markii qoomkiisi la halaagay asaga iyo mu'miniintii la socotay waxay u wareegeen markaa falastiin xaggeeda ayuu u wareegay dhulka shaam buu degay falastiin buu degay muddo ayuu markaa halkaas ayuu nabiyullaahi saalix ku sugnaa wuxuu yimid haddana maka ayuu yimid oo beydka ilaahay bay ambiyadu usoo xajin jireen oo imaan jireen halka ayuu yimid muddo ayuu ku nagaa baa la yidhahdaa maka uu ku nagaa fa aqaama biha yacbudu llaha xataa maata maka ayuu ku dhintay nabiyullaahi saalix oo maka ayuu ku aasan yahay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida cabdullahi bin cabbaas laga warinayo wuxuu soo maray meesha la yidhahdo waadi cusfaan waadiga la yidhaahdo markuu xajinayo asagoo xajinayo abubakar buu marka weydiiyo wuxuu ku yidhi yaa abaabakrin ayu waadin haada waadigan kee ahaa markaasuu abubakar wuxuu yidhi waadi cusfaan weeye ya rasuul allah wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad mara bihi huudun wasaalixun calaa bakaraatin khadbuhum alleefu azwiruhum alcabaa waardiyatuhum annimaar yulabuuna yaxujuuna albayt alcatiiq halkan waxaa soo maray oo mari jiray nebi huud iyo nebi saalix oo gaadiid saaran macnaha geel saaran rukuub bay saarnaayeen yacni hoos guntii iyo go' kore ayay qabaan way talbiyeysanayaan beytka ilaahay oo catiiqa ayay xajinayeen saasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam halkaa ayuu markaa nabiyullaahi saalix maka ayuu ku dhintay makaana lagu aasay baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa sida ibnu jariir utabari uu tafsiirkiisa kusoo naqilayo wuxuu leeyay nabiyullaahi saalix maka ayuu ku dhintay wa huwa ibnu 58 sana 58 sana ayuu jiray qoomkiisana 20 sana ayuu dhex joogay oo rasuul ahaayo dacwada iyo diinta uu ugu yeerayay sala allahu calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam